Bismillahirrahmanirrahim. Kulantii wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo naga daawanaysaan. Halkani waa Galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada. Caawa waxaa marti noogu ah khadka telefoonka si toos ah ugu jira Axmed Suleymaan oo kamid ah howlwadeennada Khartoum State of Somalia oo ku nool waqooyiga America oo ka wareysan doono dagaallo dhawaan dhex maray beelo walaalo ah oo gobolka Sool. Dhinaca barnaamijka qaybihiisa dambe waxaad ku maqli doontaan Allah u naxariistee Garaad Abshir Garaad Saarax oo dhawaan ku geeriyooday waddanka Suudaan oo jaaliyadda Khartoum State of Somalia ay u dirayso dambaalo tacsiya. Hadda waxaa khadka si toos ah ugu jira Axmed Suleymaan. Mudane Axmed marka hore kusoo dhawow Galbeed TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدوهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدن بالواحد نوجا ورنتا بريهان واحد جري تقالو la sheegay inay dad badan ku naf waayeen oo dhex maraya beelo kamida beelaha wada deega meesha la yiraahdo Dharkayn Geeyo. Bal maxaad kala socotaa maxaase dadkaasi ay isku haystaan ee ka dhaxeeya? Bismillahir Rahmanir Rahim. هذه أداة ما صنتهاي أنت آن جلين أنتاس مركهورة وحن كتاسينيا Garaad Abshir Saarax oo maanta geeriyooday oo kamid ahaa ismada reer Khartoum. Ilaahay u naxariisto, Ilaahay naxariistii jannaha siiyo, Ilaahay meel fiican ha geeyo. wuxuu ahaa garaadadayada kamid ah aad iyo aad u culus qaali ah. Ilaahay ha u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed mas'uul weyn buu soo qabtay. Ilaahay sabir ha siiyo ummadda reer Khartoum. Ilaahay sabir ha siiyo awlaadiisa iyo carruurtiisana Ilaahay sabir ha siiyo. garaadkaas Ilaahay ha u naxariisto. intaa markaan ka gudbo waran su'aashaadii weydiisay way jirtaa laba reer oo walaalo ah abtiisu ah sidii su'aalaha halka dagaal ku dhex maray intii ay gashay hadoodina way ku dhimatay. maantana alxamdulillah waxa badan oo ka dhex socda ma jirto, wax dhibaato ah oo ka dhex socda ma jirto. odayaashii iyo ismadii iyo intii wax kala xitaa la joogta ummad kale oo fara badan oo Soomaaliyeedna way soo socotaa. hadday tahay kilka shanaad iyo hadday tahay gobolada Soomaaliyeedba arrintaasina arrin istaagtay way waqtaa insha Allah. mudane bal waxaad wax nooga taabataa waa maxay sababta dhalisay dagaalkan? sababta dagaalkan dhalisay waxa weeye gacmeyn badan baa ku jirtay. hawl yar oo hore bilowday bay ahaayeen. nimankana waa niman deegaan ah, waa dad walaalo ah, waa dad ehel ah, waa dad intay noolaayeen Ilaahay meesha ku beeray waana ku sii beeraan doonaan oo deelan adduunka lama rogina way ku noolaan doonaan. arrintan waa arrimaha gaarka u ah SM howlaheedii weeye iyada ku dhex jirta meel walbana ciidamadiisii roolka iyo shiraalkana bixisa. wax qarsoodiina maaha madaxweynaha iyagu uu ka hadlay digniinna wuu ka bixiyey wuuna caddeeyey hadalladii uu ku hadlay sidaayo iyo hadalladii uu ugu hambalyeynayay sida shaydaanku u lahaa hawl fiican baad soo qabateen. waa howlaha ay weligood boodeen, waa kuwa ay old state ku hayaan, waa kuwa ay maakhir state ku hayaan, waa kuwa ay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan. waa dhibaato joogta ah, waa kansar. marka kansar waxaa lagu daaweyn karaa isagoo la gooyo ama la gufo. marka arrintaas sidaas ahayd waxaan rajaynayaa inay soo gabagaboobi doonto. maamulka Somaliland waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha Khartoum State Professor Ali Khalifa Galleer. arrintaasi maxaad kaga jawaabi karaysaa adigu? runtii dee horta afkooyina waa hadlayaa. runtii Professor Ali Khalifa Galleer aqoon badan baa loo leeyahay. maaha waxa SM iyadoo ay sheegi karto oo ka hadli karto. waa nin caadil ah. inuu caadil yahay waxa caddaynaysa ummaddiisa uu xakameeya uu ka ilaaliya dagaalada. in badan buu fadhiyo ciidan uu diidayay in la istiro. in badan buu baaqa dunyada u diray. in badan buu hadlayay. marka taasi waa waxba kama jiraan. waa un dad iska bartay dhiigga ummadda. haddii Ethiopia tahay dhibaatada ka wadaan waad aragtaa. iyagii baa
hooyaya dadkana cunaya gudahooda waad aragtaa aboor weeye aboor calaa ayi xaal wax kalaan ku idhaahda male insha allahu waanu difaacaynaa dalkayaga waanu dagaalamaynaa waanu xoreynaynaa insha allah sida ugu mudane bal waxaad wax nooga sheegtaa dhowaan waxaa ka hadlay oo saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hargeysa waran cadde waxaana uu sheegay inaan loo dul qaadan doonin laascaanood wixii hadda ka dambeeya gacan birna lagu qaban doono la saari doonana ciidamo xoog la geyn doono la rabana in xoog lagaga saaro ciidamada Khaatumo iyo maamulka Khaatumo oo dhamaantoodba waa sida hadalka u dhigay arrintaasi adigu ama ka maamul ahaan Khaatumo state sidee u aragtay والله horta arrinta maamulku waa gooni laakiin anigu odaynimadayda iyo mataqaanaa arrimaha intaan kala socdo Khaatumo state way haysay 18 maalintii qashinka waqti dagaalku ka dhacay ninka barsaabka seeranaya waxaan u maleynayaa Hargeysa ka muuqda oo sukaynin qayb ka mid ah way haysatay waxa way siyaasadii iyagu ay sameeyeen oo baa hawshan ugu soo baxday ee wadanku maanta xor buu ahaan lahaa ninka qofka saara waa hadli karaayo warcadde waa iska hadlayaa ciibtaada dhamacaydaada yaqaan baa la yiri nimanka dhiilkoodii baa buuxsamay ilaahay mataqaanaa nimco uu siiyey meel kastaba ha ka keeneen ama kiniisada ha ka soo gureen ama meel kale ha ka keeneen wax way heleen waxay heleen oo waxay dadka ku laayaan waana laga daadinayaa insha allah wuu yiri hadalladaas wuuna yimid wuuna hadlayay laakiin wax ka soconaya hadalkiisa iyo wax ka jira ma jiraan insha allah bisha soo socoto wixii ka dambeeyana wardan dagaal laga helayo waan gartay waxaa jirta dhaqaalaha adduunyadu ay siiso waxaan ku dhahdaa Soomaaliya maamulka Hargeysa waxa lagu qiyaasay in gobolada darafyada la siiyo 5% ma is leedahay lacagtaasi 5% way soo gaadhaa goboladaasi maxaan ku dhahaa Khaatumo state waxa ay wax ku baabi'inayaan oo nimankan hogolada ay siiyaan mooyaane wax naga soo gaara iyo wax naga dhaxeeya oo aan xabad ahayn oo aan hadda garan karaa xataa madowgana ku dhaho ma jirto nimankaas marka ma waxaad leedahay shacabka ku nool deegaanadaasi Sool Sanaag iyo Cayn iyo Buuhoodle deegaanadaas oo dhan xataa wax soo gaara ma jiro marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha sida maxaan ku dhahaa dariiqyada iyo biyaha iyo caafimaadka waxbarashada wax soo gaara ma jiro miyaad leedahay waxaan u maleynayaa wariye nin reer udada tahay waana la socotaa dhaqaalaha iyo midnaba wax naga soo gaaraa male wadanka iyaga annagaa dhisanay jaamacadaha iyaga annagaa samaysanay hawsha iyada annagaa wadana nimankaa xabad baa naga soo gaarta xabadna waan ugu jawaabeynaa gunti iyo gabagabadii maxaad odhan lahayd dadka reer Khaatumo maaragtay maanta la jooga maamulka Hargeysa u ololeeya inay Hargeysa maxaan ku dhahaa tiraaf hesho ama ascaanood ay kamid ahaato ama goboladaas ay kamid ahaadaan maamulka Hargeysa dadkaasi la jooga ololeynaya durbaanka u tumaya maxaad soo jeedin lahayd horta runtii waa su'aal aad u fiican dadka la jooga anaga shaqayga ugu maqan yihiin oo diiwaanman shaqo ugu maqan Khaatumo ma aha niman iyaga la jooga laakiin kuwa iyagu caloosha shaqaystayaal oo u shaqeeya way jiraan kuwaasina iyaga la mid yihiin laakiin qoryahan kale howlaha kale noo haya waanu hambalyeynaa shaqada wanaagsan ee noo hayaan warbixinta ay nasiyaan howlaha ay nala socodsiiyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan rabaa jalwari intaan ka bixin inaan u jawaabo nin maalin dhow ka hadlayay beeshaas SMta oo Suudaan sheeganayay horta Suudaanka waxaan leeyahay kursi baad ku fadhidaa kursiga aad ku fadhidana dhinacyada aad wax kaga bixin taas jawaabteedu waxa weeye hadalka aad u soo dirtay garaadka guud iyo madaxweynaha iyaga Professor Ali Khaliif Garayd kama aadan fiirsan intaada hadalka oran dhinacyadaada la eegaa inta aadan hadalka oran dhinacyadaada la eegaa dhinacaaga eeg kursiga aad ku fadhidana eeg wadanka aad ku noolshahayna eeg nolosha lagaga nool yahay dadkii lahaa silsilaha lagu xirxiray la boobay gofol oo ku naahay shilaalkii la iibinayo berbera la iibinayo magaaladii la iibinayo horta taa ka hadal markaa taa ka hadasho cid kale u jawaab baa leeyahay ninkaa maxaad kusoo gabagabaysa markaa hadalkaaga waxaan kusoo gabagabaynayaa ummadda islaamka ah ee soon wanaagsan ciidda intii gaartaa ciid wanaagsan ummadda reer Khaatumo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda reer Khaatumo waxaan farayaa
haddaynan heeryada inagu iska ridin idinaga ridi mayso haddaynan magaceenna ilaashan idinoo ilaalin mayso haddaynan inagu isdifaacin idina difaaci mayso waa laynaga gardaran yahay waa laynaga xaqdaran yahay gurigeenni baa laynagu haystaa carruurteenni baa laynagu haystaa dadkeenni baa laynagu haystaa qof walooba jahaadu diyaargarow qof walooba jahaadu diyaargarow qof walooba jahaadu diyaargarow intaasaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim halkani waa galbeed t v xaruntiisa magaalada edmonton waxaa halkaa khadka si toosa ugu jira qaar ka mid a howlwadanada khaatome state oo raba inay tacsi u tiraanyala u diraan garaad abshir mudane markale kusoo dhawow adigoo sheegaya magacaaga iyo waddanka aad kasoo hadlayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرشيد محمد بكر سيد وقصة هذا يودنكم مرحبا خاصة مقالة منصورة وحان تعشو بريا إنا لله وإنا إليه راجعون قراب أبشر صالح محمد وكبير المنطقة ودنكا في السودان وحان مغبريا دونك إلهي مغبريا يبقى رمضان الوجرة إن إلهي تنبي فردوسة وكوابيو isaga iyo wixii muslimiin waxaan u baryaynaa jaariyadda midnimo khaasatan oo aan matalayno oo hadda aan kula jirno maamulka in guud ahaan afkoodan oo ku hadlaya ilaahay ay u baryayaan in garaadka ilaahay subxaanahu watacaala beeraduu ka beryooday iyo dadka khareer khaatimo iyo ummadda soomaaliyeed inta danaynaysa oo dhan in samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo isagiina سنة الفردوس كورابي وأنا قطع السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع وحويا قادمين على عرب وحنشوفها مقالة كل صهاي وحن هالكن تعسكين عيال أنا قدر يا قراد أبشر صالح محمد وما تكون بيروني وضك سويدك وحن إلهي وقبر يا قرادك إنه جمد الفردوس كورابيو أنا قلت إذا ما تقدر قلت إلهي وسمي إيمان نفسيه لما شعب كثير خاتمنا وحان إلهي وقبريا إن سمري إيمان كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنا حدا قادمة العتيد هلقا وحان تأسين يا أبشر إنا لله وإنا إليه راجعون وتأسيتي رايل كل غوض إنتي إلهي وحان قبر إنه كيسي أنا بدو كيسي سمري والله كسي أنا وضنبا وحوي وغير فلان هو بعدين وحنقص هلا يعني هذا النص أصلا منه وحنا غير فلان وضعي شيء سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد واحد اللي على الساحل محمد دليل وحنقص هلا مقالة ماساتشوستس بوسطن إنا لله وإنا إليه راجعون. هلقا واحد تحت التيران يلا قدر يا قراد أبشر محمد إلهي وحنا قدر إن يمكن ندير وقت نقدر نتكلم مع البركة وصبرنا إن شاء الله إلهي يمكن كنا نقول يا والفهم في في إفراد في دمان غير خاص ما دنا ووقت تحسين الصومالي أيضا أنا لنا أزبان وقفنا معي وأنا أنا ووقت يعني إلهي يسير أنا ما أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبشر صالح ما تقدر يقولي وطنك سيدا إلهي وحنا قدر إن إلهي تسمى بفردوس وكورابيو كتابي تسمى إلهي بالكتابيو إنه أردنا إلهي سمري إيمان نبتيو لما في النظر خاصما الله أردنا إلهي وحنا قدر إن إلهي تسمى بفردوس وكورابيو أنا بنعبو خير وإلهي نبتيو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول شالي حسين شو قدر كم بريك بكارحان قالت يعني ما نصوص كرافوكس وحنا كان تعطيك كراية وقدر إنا لله وإنا إليه راجعون. بدأت يجا حفظ الشجري أي نبات الكاعي كراد أبشر صالح محمد إن إلهي تقي جواز بشيء إن تقي جنتي ما تقي أنا نفسي كل وقت الأساس جلس على أنا ما عندي إلهي موجود جدا فرتنا المجتمع إلهي تقي إلهي بقرية إن شاء الله بالله كريم إلهي ذكي لنا الموجودين إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وصعدنا عيد كاد وحن شوفا وضع مريكا مقارهان مقالة منصودة وحن ساعاتي تيرانيرا ودرينا قرأت نقارها قرأت أبشر صالح محمد كريد القدسي وحن لنا إنا إليه وإنا إليه راجعون. وبدر قاسمه إلهي سبري الإيمان
ha ka siiyo isagana naxariistii janna allah geeyo eheladii uu ka tegay iyo casabadii uu ka tegayna waxaan leenahay kuwii qaata oo isxambaarta allah ka dhigo waa boos qaali oo naga baxay annagana bedel khayr qaba ilaahay aan siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun anigoo aan nafracanta saxaajimase waxaan taasi u dirayaa garaad abshir faarax geeridii ku timid allaha u naxariisto intii ehelka ahayd masamir iyo iimaan allaha ka siiyo maamulka khaatimo iyo intii janaayasada samir iyo iimaan allaha ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم anigoo ahda axmed aadan oo ku nool magaalada maanasooto halkan waxaan kiirayada uga diraynaa adeerkana abshir saalax oo ku dhintay wadankaas sweden ilaahay waxaanu ka inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay waxaanu ka baryaynaa martidii malaa'igta haysto oo jannada firdawsaha ilaahay uu ku daadheena alla ka dhigo ehelkana ilaahay sabir iyo iimaanka siiyo annagoo dhan waanu wada weynay geeridu waa xaq waa sabiilul khalqi ilaahay waxaanu ka baryaynaa martidii malaa'igta daadheeyaan ehelkana sabir iyo iimaan jariida ilaahay inuu ka siiyaan ilaahay ka baryaynaa بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa la yiraahdaa ubax cabdulul waxaan ka soo hadlayaa dalka Mareykanka magaalada Minneapolis magaalada Minnesota gaar ahaan Minneapolis runtii waxaan wakiil ka ahay dhammaan guddiyada oo dhan anigoo afkooda ku hadlaya guddiyada dhaqaalaha kuna hadlaya afka qolka midnimo waxaan tacsiib fiirayay aan u diraynaa garaad abshir saalax maxamed cali buray oo ku geeriyooday dalka Sweden waxaan ilaahay uga baryaynaa martidii la jecel yahay inuu ka dhigo kitaabkiisa qaaliga ahna midigta uu u saaro ilaahay waxaan kaloo uga baryaynaa sidaan ifka ugu jeclay nin aakhira looga jeclaado wuxuu ahaa nin qiimo badan oo ka baxay bulshada reer qaatimo meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan tacsiib gaara u dirayaa ehelkii uu ka baxay dhammaan waxaan leeyahay samir iyo iimaan jamiila ilaahay hayna siiyo isaga gadaashiina alla nama fidneeyo bedel khayr qabana allah inoogu bedelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantahay galbeed TV halkaa waxay inoogu dhammaatay tacsidii qolka midnimo ee aan ugu talagalnay garaad abshir saalax maxamed وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيقو كهدلايا مقع مامل قبلتك أودر ستيت أو الصوماليا وحان أنيقو رباينا تعسيد تيرانيا أودرو شعب كرية خاتمو المدى الصوماليات يقويسكي يقرابدي وكبحي مرحومكو وحان ليهاي إلهي سمري بنا نقصي دمان تنبا وحاوها هليي صوماليات وكبحي صوماليا ودن وانا تبدونا بيس محانكولا بوسكيسي إلهينا بدل خير قباهي نسيو waxaana leeyahay dhammaanteenba ilaahay sabriga naga siiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin jaariyadda khaatumo state of Somalia iyo Real State waxaan leenahay halganka waxa la wado waa la soconayaa insha Allahna waan guuleysan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo kanalka naga dhageysanaysaan waa Galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton dalka Canada intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kala waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo amaan Allah